بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan salaamayaa bahda saxaafadda iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland. mar labaadka waxa aan jecelahay maanta inaan wax ka yiraahdo qadiyadan maanta taagan xisbiga kulmiye iyo khilaafka xogaaga ah ee jira. run ahaantii qadiyada khilaafka xisbiga kulmiye waa qadiyad runtii khilaaf saameyn ku yeelan kara siyaasadda iyo maamulka dalka. sababtuna waxa weeyaan xisbigan kulmiye waa xisbi xaakim ma xisbi mucaarada, waa xisbi xaakimkii wadanka maamulkiisa iyo siyaasadda dalka hagayay. sida awgeed haddii khilaaf soo dhex galo wadanka saameyn buu siyaabo kala duwan ugu yeelan karaa. anigoo ka mid ah taageerayaasha xisbiga intii jiray xisbiguba taageerayaashii sababay in guusha xisbiga kulmiye maanta uu ku fadhiyaa ay dhalato ayaan ka mid ahaa. aniga rag fara badan oo kaleba tacab weyn baa naga galay xisbiga. sidaa awgeed waxaanu jeclaysanay markaanu aragnay xaaladda cakiran ee xisbiga ka jirta inaan maanta wax ka niraahno oo aan arintaa faragelino. waxa aan doonayaa inaan marka hore cadeeyo madaxweynaha dalka maanta ka jira siyaasadda dalka hogaaminaya Axmed Maxamed Siilaanyo wuxuu ahaa hogaamiyihii xisbiga kulmiye ama gudoomiyihii xisbiga kulmiye markii uu talada doonayay inuu ku guuleysto. hogaankiisii iyo leadershipkiisii baa keenay inuu maaragtay taageerayaasha يعني taageeradii ay sameeyeen taageerayaashu shaqadii qabteen ka sokow guushiisii qayb bay ka ahayd marka leadershipkiisu maantana waa xisbi xaakima oo madaxweynaha dalka waana isagii. marka taa waxaan cadeynayaa mar labaad inuu madaxweynuhu xaq u leeyahay hadduu soo taago oo uu musharaxnimadiisii sheegay inuu teeramka kale xaq u leeyahay sida sharciyadda xisbigu ay dhigayso. waxa weeyaan taas muran ma leh. waxaan doonayaa marka halkan ka cadeeyo sidii sifadii ay ahaan jirtay ee qaabkii la isu dooran jiray in loo mari doono golaha dhexe fadhiisan doono. golaha dhexena ay candidatekii musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka halkaa ay ku dooran doonaan si dimuqraadiyada oo cidna la caburin cidna la eedayn ayaa halkaa lagu dooran doonaa. marka waxaan leeyahay horta musharaxnimada madaxweynuhu xaq buu leeyahay. sabab xisbiga dhexdiisu carqalad loo geliya musharaxnimadiisana meesha ma taalo. waayo wuxuu qabtay baaba badan. muxuu ahaa wixii ka guuxayay faraha badnaa marka gudoomiyaha qaar ka mid oo fara badan oo u qabsoomeen. marka codkan waxa laga siiyay dhammaan gobolada dalka in ka badan 50% ba ayuu ku guuleystay. marka taas iyadu muran ma leh, xaq buu leeyahay inuu soo taago. waxayna u taalaa golaha dhexe waanu soo dhaweynaa haddaan nahay taageerayaasha xisbiga. taas waa taa. waxa markaa jirtay iyadana khilaaf xagga musharaxnimada ah oo gudoomiyaha xisbiga maanta talada haya Muuse Biixi Cabdi runtii isaguna weyd badan buu leeyahay. waa gudoomiyihii xisbiga ee lagu doortay shirweynihii ugu dambeeyay. waxaanu jecelahay iyadana haddii hunguri ka galay in muxuu ahaa arintaa xisbiga dhexdiisa lagu dhameeyo iyadoon qaylo iyo buuq midna laga keenin. insha Allah haddaanu nahay taageerayaashiina shaqo weyn iyo wixii hawla aan ka qaban karno si daacada oo muxuu ahaa wadannimo ku dheehan tahay oo dalka iyo xisbigaba aanu dan ka leenahay baanu loo gelaya aanu gelinaa. maxaan ku raahdaa ma doonina cidna in la muquuniyo. waxa weeyaan wixii xisbiga dhexdiisa ah waa la dhamaynayaa insha Allah si wanaagsan bana lagu dhamaynayaa waana la isu joojinayaa. waxaan kaloo runtii sheegayaa in caado ay u hayd xisbiga kulmiye weligiiba taariikhiyan
ay xisbiga kulmiye ku soo caanamaalay in wixii khilaafay uu jira uu dabadiisa ku dhamaysto oo wixii la soo dhameeyay consensus lagu soo dhameeyay la keeno sidii maalintii dhaweeytay shirweynihii uu qabsoomay oo kaleba waxaan kaloo cadeynayaa golaha dhexe waxa dabcan la soo doortay qaab sidii la isla gartay muxuu ahaa gudidii hore ee fadhiisatay qaab saami beeleed ah beel qaybsi baa markaa ka dhacay shirweynihii baan lagu ansixiyey in ay beeluhu soo gudbin doonaan liiska golaha dhexe tiibaana markaa la sameeyey oo dhacday golaha dhexana waxay ku yimaadeen qaabka beelaysan ee markii hore xisbigu ogolaaday ee la isla qaatay kulligood aniga idinla hadlayaa oo golaha dhexe ku jira waxaan ku yimi qaabka cid ay reerku iyo beeshu ka raali tahay baana maartay meeshii wada yimi faragelin kale oo ku timi oo siyaasadeed ma ay jirin haddii cid wax la faragelinayo anigoo aad ogtihiin xisbigan taageerayaashiisa inaan ahaa la taliyay madaxweyne ku-xigeenka ahaa xoogaa intii ugu dhacday iyo dhibtii soo gaadhay aad ogeydeen oo la islahaa waaba cadhaysan yahay ayaaba laga tuuri lahaa runtii taas dee faragelin may dhicin ana saan ku imi waa sidaa anagii rag fara badan oo kale xisbiga markaa golihiisa dhexe saas sharci ku yahay waxaan markaa jecel lahay in xisbigu golihiisa fulintu uu isugu yeedho isagoo wada jira khilaafkii la dhameeyey golihii dhexe golaha dhexe markaa ay si xaqa u doortaan ciddii ay doonayaan oo uu ka mid yahay oo ugu horeeyo musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland u noqon doona xisbiga kulmiye oo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wixii kale ee khilaafa ee jirana dibadda lagu soo dhameeyo si aanay saameyn ugu yeelan taageerayaasha xisbiga wada ogtihiin in la soo dhisayo ay ku jireen taageerayaal ilaa 10 sanadood ka badan xisbigan tacab la soo galiyay uu jiray sida awgeed waxaan jecel lahay in anagoo tacabka la galiyay xisbiga aanu runtii muxuu ahaa dan weyn naga hayso in si wanaagsan oo isu joojina oo aan muquuna lahayn lagu dhameeyo arinta iyada ah dadka kale ee ku faraxsanna ay runtii ka waantoobaan arinta xisbiguna sidiisa caadada ahayd uu ku dhameeyo arinta consensus iyo si wada jira uu ku dhameeyo taasaan anagu soo jeedinayaa waanu ku hawlgalaynaa taageerayaasha xisbigan nahay annaga dul qaadanay oo samirnay waxaan leenahay siyaasadda waa loo samraa cid walbana waa inay u samirtaa intaasaan ku soo gabagabeynaya haddii Ilaahay ka dhigo waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii taariikh la cayimay ama 29 ha noqoto ama 1 bisha ha noqotee in taariikhaas ay noqdaan yani oo la leeyahay golaha dhexe ay isugu yimaadeen in dib loo dhigo haddii loo dhigi karayo la isu joojiyo arintaas iyadoo si wanaagsan oo turxaan la ay ku dhamaato taageerayaashu siinayaan muxuu ahaa musharaxana aan carqalad aanay gelin sidaasan ku rajo mar labaad waxaan cadeynayaa in aanu diyaar u nahay in wixii khilaafa ee jira aan u guntano oo dhamayno anagoon cidna u xaglin muxuu ahaa lana safe gareeyo in burbur iyo qalqalaas iyo khalkhal uu ka dhaxdhaco xisbiga gudihiisa ma ogolin taas inay dhacdo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaanu ku taageeraynaa inuu mar labaad soo taago si wanaagsan oo sharaf leh oo wanaagsan halka loogu doorto inta ka horeysana madaxweynaha waxaan u soo jeedinayaa dhammaan golaha dhexe iyo taageerayaasha xisbiga adaa u madaxweynaha in aad muxuu ahaa kasbato qulubtooda iyo laabahooda si aan saameyn ugu yeelan carqaladda xisbiga ka dhex jirta maanta halkaana lagu koobo intaasaan ku soo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.